waxaan leenahay dadka ka dambeeyow iimaanka idinka baxay ilaahay baa ka fogaateen xumaan baad ka shaqayseen waad aragteen laami qurux badan ee muxuu ahaa inta lala soo istaago hub lagu ridaayo magaaladaas burburkeeda cid ay dan ugu jirto ma jirto waxaan leeyahay xilka ilaaha baxsho qadartiisana kursiga laga helaa laakiin dhiig shacbiga reer koonfur galbeed in wax laga raadiyo arrin sax ma ahan marka arrimahaas dadka dabada ka riixaya ama oo dagaalada meesha ka socdaan xoojinaya waxaan leenahay iimaanka isgeliya dagaaladii halkaas ka dhacay aad ayaan uga xunnahay annagoo xildhibaanadii federaalka lama filaan ayay arrintaasi laakiin waa laga fursan waayey in meeshaas lagu dagaalamo falilaahi alxamdu dagaalkii waa lasoo afjaray qolo mooryaan ah oo dhibaato ku haysay shacbiga reer koonfur galbeed ayaa maanta carrada laga safeeyey hambalyaan leeyahay ciidamada daraawiishta reer koonfur galbeed aadaa u mahadsantihiin sida waajibka u gudateen intaas kadib waxaan kaloo aad uga xunnahay in lagu kor dagaalamo shacbiga reer koonfur galbeed ayagoo jiraan abaaro dhibaatooyin bahsan biyo la-aan taasna waxay tahay mid aad si aad noo taabatay waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq ugu diro siyaasiyiinta ku lug lahaa arrintaasi oo koonfur galbeed ka socoto waxaan leeyahay xilka ilaaha baxsho qadartiisana kursiga laga helaa laakiin dhiig shacbiga reer koonfur galbeed in wax laga raadiyo arrin sax ma ahan waxaan iyagan ka codsanaya inay iimaanka isgeliyaan ay xilligooda sugtaan hadday damac ka leeyihiin inay wax xukumaan waxaa kaloo baaq halkan u dirayaa reer koonfur galbeed faham fiican ay ka haystaan siyaasadda soomaaliya waana fahmi karaan say ay wax yihiin marka arrimahaas dadka dabada ka riixaya ama oo dagaalada meesha ka socdaan xoojinaya waxaan leenahay iimaanka isgeliya reer koonfur galbeed fahamkooda intaas waa ka sarreeyaa waana ka fiican yihiin dad wax gartana waa yihiin marka waxaan rajaynaynaa in magaaladaas ay ahaato nabadgelyo reer koonfur galbeedna ay ku noolaan nabadgelyo barwaaqo barbare iyo baraare waxaan idin leenahay reer koonfur galbeed dulqaata insha allahu tacaala waana laga bixi doonaa aadaana u mahadsantihiin waxaan halkan isugu nimid in aan ka tacsiyeyno kana muujinno wax alla waxa laga muuji karo oo ah ka xumaansho iyo ka gubasho iyo ka kululaasho waxa ka dhacay magaalada Baydhabo magaalo amni ah ee qofkii qof dilo ee u bareera la toogto si emergency ah loo toogto waliba ee amnigeedu waayahan dambe runtii aad iyo aad u fiicnaa in qalalaasa laga abuuro oo dhibaato laga abuuro oo xilli abaaro iyo baahi iyo macluul dadka ay hayso lagu abaabulo oo qarash lagu bixiyo qalalaaso iyo dhimashadooda meeshii noloshooda qarash lagu bixi lahaa dadka dhimashadooda in qarash lagu bixiyo waxaan leenahay dadka ka dambeeyow iimaanka idinka baxay ilaahay baa ka fogaateen xumaan baad ka shaqayseen miraheedana waad gura doontaan qayb ka mid ana hadda waad gurateen runtii magaaladaas waayihii dambaba waxaa lala damacsanaa dhibaato ilaahay si uu ka badbaadiyey marar badan haddana waxaa ilaahay ka rajaynaynaa siduu ilaahay kuwii hore uga badbaadiyey kuwa dambana inuu uga badbaadiyo wixii dadkii wax ku gaareenna ilaahay u booga dhayo IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka noocyada Mastercard ee ka helisa IBS waxa kamid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard noocyada Visa Card ee aad ka helisa IBS na waxa kamid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card runtii guryo qiimo qurxinaya magaalada sidaad aragteen fiidiyoyaasha magaalada waliba iyadoo laamiyadeeda la dhisaayo oo horumarkeeda laga shaqeynayo ayaa runtii waxaan ku soo beegmeen waad aragteen laami qurux badan ee muxuu ahaa inta lala soo istaago hub lagu ridaayo magaaladaas burburkeeda cid ay dan ugu jirto ma jirto dadka sideedaba ajandayaal banaanka loo soo adeegsadane marka hore ayagoo indho la'aan ahay dagaalka galaan marka dambana way ka shalaayaan
waxaan leenahay dadka walaalaha ee siyaasaddu ay ka gashay iyo damaca uu ka galay inay dadkooda burburiyaan inay magaaladooda burburiyaan maalinaad ka shalay doontaan waxna ku dheefi maysaan iska daaya magaalada nabadeedii u ogolaada horumarkeedii ilaamiyadeedii inay dhismaan u ogolaada nolol inay ka jirto u ogolaada waxa aad ku wadaan ka joojiya tan kale waxaan leenahay maamulka waa ku mahadsan yihiin waayo amniga ayaga u xil saaran dadkana maamulkay kula xisaabtamayaan sida ay amnigu ugu istaageen oo madaxweynaha ugu horeeyo madaxweyne Cabdicasiis iyo wasaaradaha amniga iyo iska dhammaan nabad sugidda siday uga shaqeeyeen iyo siday ku soo afjareen waa mahadsan yihiin waxaan leenahay dadka dagaalka huriyay ku cibro qaata shalay qof noolaa dhimashadiisa inaad sabab u noqoteen oo ilaa qiyaamana ay idin haysato wax laga xumaadana ay tahay shaki igama jiro inaad maanta ka shalaysan tahay idinka naftirkiinu aad ka shalaysan tihiin guri shalay qurux badnaa oo dhisnaa ayaad arkaysaa isagoo maanta burburay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ku waxyeeloobay ha u boogadhayo amnigeedii allah uu soo celiyo wixii ka dhacayna wax laga reesto oo laga caafimaado allah ka dhigo hada wabillahi tawfiiq waxaan kaloo soo jeedinayaa dadka waxaas qarash ku bixinayay intaad toobad keentaan u soo jeesta inaad wax ku bixisaan dadka abaaraha iyo macluusha ay haysay masaakiinta wabillahi tawfiiq soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya